الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا وكسرنا ولا لا قرقرك أقونت مع معود إجارتي ما أنتو حصوب وقني كام فيها لقولتك مقالة مقدشو كام كاس يكونوا لي هنا برك عياله sida u jeedin goobtan hadda ay taaganahay waa goobtii biyaha ay ka cabaayeen dadka kaamkan ku nool run ahaantii aad iyo aad u tiro badan yihiin dadkan waxaa ugu deeqay gargaarkan biyaha ah walaalaha gargaarka agoonta mamnuuc ijaarati si free ah ay biyaha noo cabaan waxaa soo sadaqaystay walaalo oo khayrka jecel Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda Allah dhaafo miisaankooda xasanaadkan Allah uu qabo biyahana waxay ka mid tahay sadaqada mid ugu fadliga badan insha Allah ta'ala goobdo waxaan si kooban u soo dhaweyn doonaa dadka kaamkan biyaha ka cabaayay ayaga ayaa insha Allah ta'ala goordo aadi doona bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin waan soo gaarsiiyeen biyo ahagoona kaanka ku nool kaama kamid ku noolnahay walaalahay waan soo gaarsiiyeen gargaar biyo free ah ahagoona waa ku maasniin waa u mahad celini walaalahay beeshana ku dhiwaasana biyo ma haysano beed ma haysano waxa haysano malaha walaalahay bari waan soo gaareen alhamdulillah shukr mahad biyo free way kaanka saddex kaaras ka qoonyaa tira badana daga wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh kala sidoo kale inta waxaana la joogo walaalkeen Sheekh Umar oo kamid ah dadka kaamkan ku nool isla markaasina insha Allah ta'ala waxaan si guud ugu dalbanaynaa inuu ka warbixiyo xaaladda kaamka iyo sida dadka biyaha ay u cabaan iyo insha Allah ta'ala dadka walaalihii biyaha soo gaarsiiyay gargaarka agoonta mamnuuc ijaarati Sheekh Umar soo dhaweynaya insha Allah Sheekh Umar soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إليه عيد كله خاصان إليه وحايد كله كله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون دتك سيدا بيها يا لغا أوري دمانتود waxdana biyahay ku nool yihiin biyo la'aan wax noolaa kala balaha biyaha waxay anfacayaan salaada xageedii wax kasta anfacayaan qaas aan walaalaha gargaarka agoonta imaam Uudi Jaarati way maasayn khayraad Allah siiyo khayraad badan Allah siiyo wax badan soo gaarsiiyeen raashin badan ay noo keeneen markii soo furkii markii waxa la yiraahdaa afur ahaan ay noo keeneen daqarsoon soonkii oo dhan afurayna sii jireen way mahadsan yihiin dharay noo keeneen wax badan ayna siiyeen waa aad ay mahadsan xasaan biyahana waa nala sii jiray hadda biyihii waa yaraadeen sidaas ay fahmeen hadin waa naloo badiyay maanta in laga dhigo biyihii $200 laga dhigo ayaa hadin maanta la isku sheegay Ilaahay khayr ha siiyo walaalaha gargaarka agoonta imaam Uudi Jaarati aad iyo aad ay mahadsan yihiin annaga xaqayna kulay dad fiican oo sharaf leh ay agtayna ka yihiin asaan ayagana dambigooda Allah dhaafo iyo dambi waalidiintooda cadaw iyo gaalada Allah ka qabto khaasaan wadan gaal ay ku nool yihiin wadamaas gaalada kulay xaasidnimo iyo dib iyo shid iyo wax badan jiraan ilaa shidada iyo dibka iyo gaaladii ay jirooyinkii ay wax dhan Allah ka badbaadiyo alhamdulillah wa thana'u lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida wa yadfa 'anna billahi wa ni'ama ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azim sultanik wa majdika allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة الأولى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي ذاتك إسلامك أنه قرقار وقن دمقود إله وداف إله يا ولا لا قرقارك أوات حسان دمقود داف إمام عودي جارك حسان دمقود الله داف اللهم صل على سيدنا محمد